sahro walaal su-aal aada u qiimo badan ayaad iweydiisay waadna ku mahadsan tahay. haddii aan ka hadlo wiilkayga Ayaanla, arday aad iyo aad u qiimo badan ayuu ahaa. arday waxbarashadiisa aad ugu dadaala ayuu ahaa. ilaa yaraantiisa wuxuu jeclaa jaamacadaha wadankan hadda ugu caansan Ivy League loo yaqaano ayuu ku hamin jiray. wuuna soo dadaala run ahaantii, dadaal badan oo dheer uu kasoo maray. ma ahan in waqti yar uu soo geliyo labadeenaba. arday walba oo horumar gaari, ilmo walba oo horumar gaarana taa waxay caddaynaysaa waalidkana inuu ku dadaalay, ilaahayna wuu la garab qabtay. arday waxbarashada aada ugu wanaagsan uu ahaa. iskuol walba uu dhigtay ilaa dugsigiisa hoose. arday ku wanaagsan uu ahaa. buundooyinka uu noloshiisa keenayna yacni xitaa ma aysan ka yareen. aadna uu u dadaalay. waa gartay heerka ugu sarreeya ee marka cunug uu buundo waxbarasho uu keena ayay taasi tahay. Maraykanka waxaa lagu qiimeeyo waxbarashada. bal marka waxaad iga warantaa, ma filayseen maadaama uu ilaa yaraantiisii cunug soo dadaalayo uu ahaa, ma filayseen in mid kamida jaamacadaha Maraykanka loogu jecel yahay oo shahaadooyinkooda aada loo qiimeeyo in ay weliba deeq waxbarasho ay siinayso? run ahaantii waan filaynay, inkastoo ma aragtay waalid ahaan aniga iyo aabihiisa walwal badan aan ka qabnay. waan ogeen inuu wiilkeena heer gaari doono, laakiin haddana ma dhihi karno yacni wuu helayay, laakiin wuu dadaalay dadaal badan ayuu ka maray. jaamacado badan ayaana rabay oo Ivy League kamid ah. yeel keliya ma aysan ahayn, laakiin yeel ayaa nasiib u yeelatay, deeq waxbarashana u fidisay. wayna ku mahadsan yihiin. markii lagu soo wacay ood ogaatay in yeel wiilkaaga deeq waxbarasho uu ka helay, dareenkaaga siduu noqday? wallaahi Sahroy abaayo, dareenkayga halkan kuma soo koobi karo. very emotional ayaan noqday. isagaa horta emailka iyo macalimadiisa isla furay, waana kala sii ballamay. hooyo waxaan idhi emailka markaad heshid iskuul waqtiga ay emailka yacni siga kula soo xiriiri lahaayeen waa xilli uu iskuol ku jiray ahayd. guriga wallaahi maalintii shucuurteena aniga iyo aabihiiba ma malayn kartid. odaygayga shaqo xitaa wuu kasoo laabtay. wuxuu yiri ilaa aan natiijada ayaan la ogaado maba shaqayn karaba. telefoon ayuu noo soo diray Ayaanle. telefoonkii anigaa ka qabtay, anigoo hadde yacni shucuurtayda say ahayd aan kaaga sheekeyn karin. haye hooyo maxaa qabaar hesho? markaasuu yiri hooyo waa la iqaatay. ma micnayn kari wallaahi waxa aan dareemay. waa ilmeeyey. ilaahay aan ku shukriyey. mahadii oo dhan ilaahay u sugnaatay. alxamdulilah. dhowr ilbiriqsi kadib ayaan idhi hooyo jaamacadee ku qaadatay? markaasuu yiri hooyo yeelaa i qaadatay. wallaahi waan cararay, telefoonkii waan damiyey, waan cararay. iskuolkiisaan isku sii daayay si aan ugu hambalyeeyo wiilkayga. waa gartay, waa arrin aada iyo aada u qurux badan oo loo jeclaysto. bal marka waxaad iga warantaa, Ayaanle Nuur meeqa sanuu jiraa? muxuuse jecel yahay hadda in uu barto oo uu ku takhasuso? Ayaanle Nuur wuxuu jiraa 17 jir ayay da-diisu tahay. wuxuu dhashay bishii 8 sagaalkeeda 2001. waa 17 jir. fasalkii ugu dambeeyo dugsiga sare ayuu hadda ku jiraa. insha allah jaamacadda wuxuu bilaabi doonaa sanadkan markuu dugsiga sare ka qalin jabiyo. wuxuuna jecel yahay inuu caafimaadka barto. waa gartay. marka maadaama waalidiintiis ay Soomaaliya ka yimaadeen, dabcan xataa qaar ka mida warbaahinta Maraykanka wax ka qoray aan arkay ay soo qaadanayeen inuu yahay wiil ka soo jeeda Soomaaliya oo waalidiintiis iyo xataa qaxootinimo ay ku imaadeen wadankan. wiil qaxooti ayay dhaheen ayaa helay mid ka mida jaamacadaha ugu qaalisan Maraykanka iyo dunidaba. marka muxuu ka yaqaanaa Soomaaliya? mase la hadli karaa hal daqiiqo Ayaanle? Ayaanle waad la hadli kartaa, wuu ila joogaa. Soomaaliyana kolley wax badan ayuu ka yaqaanaa intaan annaga uga sheekaynay. wuuna tegay 2 jeer ayuu tegay. 2005 wuu tegay, 2006 wuu tegay. wuu jecel yahay wadankiisa, wuu jecel yahay dhulkiisa hooyo. waayahay, Ayaanle aan la hadlo daqiiqad hadday suuragal tahay. waan ku dhiibi doonaa walaal. waa kan Ayaanle. Ayaanle sidee tahay? waa ku hambalyeynaya horta. fiicana. It means a lot to me and my family. I've been working my whole life just to get into one of the best schools in the country. It's proof that all my hard work. waxay uga dhigan tahay aniga iyo qoyskaygaba wax weyn. waxaan ka shaqaynayay nolosheeda oo dhan inaan helo mid ka mida iskuullada ugu fiican ee dalkan.
tani waxay xaqiijinaysaa in dadaalkeygii uusan cidlo ku bixin. waa tahay hal erayood Soomaali ku dhihi karta maxaad dhihi lahayd hadduu jiro? waan ku faraxsanahay guusha aad gaaray. aad baad u mahadsantahay ayaan le hambalyo.